السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan mawduuceena maanta waxaan wax kaga ogaan doonaa diimaha ay dadku haystaan diintee ugu badan ay dadka adduunka ku nool haystaan iyo diintee ugu yar ay dadka adduunka ku nool haystaan haddaba alaasoo dhan waxaanu ka jawaabi doonaa inta aan ku guda jirno barnaamijkeenan fadlan daawo bilow ilaa dhammaad si aad wax badan uga ogaato adduunka dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa inay gaadheen 7.7 bilyan dalka China waxaa la sheegay inuu yahay dalka ugu badan ee ay dadka bilaa diinta ah ay ku nool yihiin haddaba mawduuceenan maanta waxaan wax kaga soo qaadan doonaa percentage-ka ama boqolayda ay diimuhu ku leeyihiin wadamada aynu soo qaadan doono dalka Mareykanka Christanku boqolkiiba 87 Muslim 0.9 Hindu 0.6 Buddhism 1.6 Canada boqolkiiba 27 Christian dadka bilaa diinta ah boqolkiiba 23 Muslim 2.1 Hindu 1.4 dalka Francisca Christian boqolkiiba 23 relegation boqolkiiba 28 Muslim boqolkiiba 7 Buddhism 0.5 Mexico Christanka boqolkiiba 95 dadka bilaa diinta boqolkiiba 4.7 Buddhism boqolkiiba 0.07 Muslim boqolkiiba 0.01 United Kingdom amba dalka Ingiriiska Christian boqolkiiba 17 dadka bilaa diinta boqolkiiba 22 Muslim boqolkiiba 4.4 Buddhism 0.4 dalka Italy Christian boqolkiiba 83 dadka bilaa diinta boqolkiiba 12 Muslim boqolkiiba 3 Buddhism 0.2 dalka Brazil Christian boqolkiiba 95 relegation boqolkiiba 0.00 Buddhism 1.4 Muslim 0.02 dalka Germany Christian boqolkiiba 68 dadka bilaa diinta boqolkiiba 24 Muslim boqolkiiba 5 Buddhism boqolkiiba 0.3 dalka Russia Christian boqolkiiba 73 dadka bilaa diinta boqolkiiba 16 Muslim boqolkiiba 12 Buddhism 0.1 dalka China dadka bilaa diinta boqolkiiba 50 Buddhism boqolkiiba 18 Christian boqolkiiba 5 Muslim 1.8 dalka Japan dadka bilaa diinta boqolkiiba 57 Buddhism boqolkiiba 36 Christian 1.6 Muslim 0.2 dalka Australia Christian boqolkiiba 76.3 dadka bilaa diinta boqolkiiba 24.2 Muslim boqolkiiba 2.4 Buddhism boqolkiiba 2.7 India waa dalka ugu ballaaran ee diinta Hinduuga Hindu boqolkiiba 97 Muslim boqolkiiba 10 Christian 2.5 Buddhism 0.8 dalka Bangaladesh Muslim boqolkiiba 90 Hindu boqolkiiba 9 Buddhism 0.5 Christian 0.2 dalka Pakistan Muslim boqolkiiba 96 Hindu 1.9 Christian 1.6 Buddhism 0.01 dalka Sri Lanka Buddhism boqolkiiba 70 Hindu boqolkiiba 13 Muslim boqolkiiba 10 Christian boqolkiiba 7
dalka Sacuudi Carabiya Muslim boqolkiiba 93, Christian boqolkiiba 4.4, Hindu 1.0, Buddhism 0.3, dalka Masar Muslim boqolkiiba 88, Christanka boqolkiiba 11.2, Buddhism 0.00, Hindu 0.00, dalka Iran Muslim boqolkiiba 99.5, Christian 0.2, Hindu 0.03, Buddhism 0.00, dalka United Arab Emirates Muslim boqolkiiba 67.9, Christian boqolkiiba 12.6, Hindu boqolkiiba 6.6, Buddhism boqolkiiba 2, dalka Iraq Muslim boqolkiiba 99, Christian boqolkiiba 0.8, Buddhism 0.0, Hindu boqolkiiba 0.0, dalka Indonesia Muslim boqolkiiba 87.2, Christian 9.9, Hindu boqolkiiba 1.7, Buddhism boqolkiiba 0.7, dalka Philippines Christian boqolkiiba 85, dadka Bilaa Diinta ah boqolkiiba 7, Muslim 5.5, Buddhism boqolkiiba 1.5, dalka South Africa Christian boqolkiiba 81.2, dadka Bilaa Diinta boqolkiiba 14.9, Muslim boqolkiiba 1.1, Buddhism 0.0 boqolkiiba. Haddaba diinteebay kula tahay inay dadka adduunka ku nooli aaminsan yihiin? Christanka waxaa aaminsan boqolkiiba 33, diinta Islaamka waxaa aaminsan boqolkiiba 24.1, dadka Bilaa Diinta waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 16, diinta Buddhismka boqolkiiba 7, diinta Hinduuga boqolkiiba 16. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.